maadiyaad waxaan u soo dhaweynayaa madaxda sharafta leh ee saaka ay furaysa xafiiskaygan October waxaan leeyahay ku soo dhawaada xafiiskan ana qalabeeyay ana furtay wana isxilqamay si xusbiga wadan u soo baxo xusbiga wadan aanu taageersanahay hadaanu nahay xaafadda October xafiiskan aynu xariga nooga jiro anaga gudoomiyaha ugu yeernay anaga qalabaynay anaga ku soo dhaweynay sidaan daraadid waxaan doonaynaa inuu xariga nooga jiro gudoomiyuhu gurigan aadka u qalabaysan quruxda badan ee uu ku deeqay abwaanku waxa ku yaala xaafadda Tuuli ka tirsan October waxa weeye waa guri aad u qiimo leh waa meeshii cod ku yaalay waxa noo sharafa oo noo qiimo ah inaan maanta ku furano xafiiskeeni koobaad oo ay saddex xafiisna inoo hareen xaafadeena Madiina ay ku dhaqan yihiin beela kamida beelaha Jamhuuriyadda Soomaaliland daga oo beelaha Gabooye ah insha Allah ta'ala ana waxaan u daleenahay inay guusheena xisbigeena iyo mustaqbalkiisa ay inoo noqoto mid magaranaysa horseed u ah farxad bay noo tahay farxad nahay beesha Gabooye ee xaafadan Deeta Madiina farxadda waxay noo tahay xafiisadeedii xusbiga wadani aanu u sameynay ayaanu maanta la furayaa oo loo soo horeeyay oo xarid dalda jariya waxa weeyaan waxaan leeyahay gudoomiyihii xusbiga wadaantii gudoomiyihiisna dobolka wixii oo dhan ayaa diyaara waxaan leeyahay caalamku daawado beesha Gabooye in maanta ay tabaxday xariiridii waxa mar labaad iyo mar saddexaad ba noo farxada inaan hor taaganahay guriga dabaqa ahaa ee loogu talagalay inuu ka adeego xisbiga wadani ee uu ku deeqay Doore Xilsi Samatar oo ah odayaasha beesha Gabooye ee degan Imaaraadka Carabta raxiim mudane gudoomiye ku soo dhawaada xafladda furitaanka xaafadda October aan ba xafiisyada aynu xarkaa ka jaraynay gurigan waxa inoogu deeqay abwaan Maxamed Xasan Douglas hogaamiyaha xisbiga wadani gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani waxa ka jarka xafiisyadani ka hadlayay ayaa uga mahadnaqay taageerayaasha xisbiga ee ka furtay xafiisyada magaalada Burco caalamiin waxaan halkan ka salaamayaa beesha Gabooye ee xaafadda Madiina salaadiinta boqorka odayaasha waxgaradka siyaasiyiinta way ku mahadsantihiin hadaa gurigan furteen xisbiga u furteen oo idinku qalabaysateen oo idinku gogasheen waxa weeye dhalinyarada iyo haweenka iyo cid waliba waxay soo abaabushay inay furato xafiisyo oo iyagu diyaariyaan oo qalabeeyaan iyagoo doonaya in xisbiga taageeraan xisbiga maalgeliyaan isbarbar taagaan soo saaraan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaanu ku faraxsanahay inaanu joogno xafiisyo 330 ah oo laga furayo gobolka Togdheer degmada Burco waxaanu joognaa hadda xaruntii guud ee Mahiigaan ururka Mahiigaan oo ka tirsan xisbiga wadani isxilqaamay ee xarunta quruxda badan sameeyay waxaanu xadhiga uga jaraynaa si ay u noqoto xarun loogu shaqeeyo xisbiga oo ka mid ah xarumihiisa waaweyn ee campaign-ka doorashada madaxtooyada